murudinya wadin ilaahay baa mahad leh tuulo barwaaqo iyo dadweynaha reer tuulo barwaaqo waxaan soo gaarsiinaynaa wacyigelintii diiwaangelinta halkan waxaa maraya madaxdii xisbiga ee ugu sareysay iyo kuwii gobolka xisbiga kulmiye waxay u socdaan dhammaan dadweynaha degan tuulo barwaaqo intii kaarka qaadatay ma aha intii aan qaadanin kaarka qofkii warqadda qaatay wuxuu doonanayaa laftii qofkii uu ka lumay wuxuu doonanayaa laftii qofkii aan isdiiwaangelinin iminkii soo diiwaangelin chance baa la siiyey mar kale inuu chance helo qof aan diiwaangelinta aan gelin marka waxaan aad iyo aad idinku codsanaynaa oo idinku adkaynaynaa inaydu dadkeenna diiwaangelisaan mar walbana ogaada reer tuulo barwaaqo waxaa diiwaangelintaasi waxay sheegaysaa hadba populationka ku nool magaaladan taasaa lagu saleynayaa waxbarashadiina caafimaadkiina caawimadiina haddii deeqa la helo hadhowto wixii la helo hadhowto waxaa loonaya tirada ku nooli waa intaa markastoo nambarkiinu bato dee waxaa noqonaysaan adeegyadiina asaasiga ayaa badanaya marka waxaan idinku adkaynaynaa inaad jaaniska maanta lana siiyey komishinka qaranka oo ay xukuumaddu fulinayso oo aana dowladshaya fulinayn oo aana hay-adaana fulinayn oo cashuurteena laga fulinayo inaan qofka muwaadinka aanu dayicin jaaniska hor yaalla aan kusoo dhaweynaya mustafa calaa umuur dunya wadin ilaahay baa mahadle subxaana watacaala maanta waxaan idila soconnaa waa jaanis ama waa nasiib shantii sanaba qofka muwaadinka uu mar helo oo ah in qofku ikhtiyaarkiisa qofka muwaadinkii waxna doorto lana doorto marka kaarhkii aad wax ku dooranaysay ayaa laaleys la keenay qofkii aan horey isu diiwaangelin qofkii warqadda haystay kaarhkiisii inuu kaarhkii laftaa soo qaato iyo maxaanku idhahdaa qofkii qaangaadhay inuu soo diiwaangeliyo qofkii hore 2 jeer isu diiwaangeliyo loo diiday inuu mar kale isdiiwaangeliyo marka maanta waxaan idinku soconnaa qof kasta oo muwaadina oo halkan degani inuu kaarhka soo qaato wakhtigu doono ciddu doonaha u codeeyo laakiin ujeeddadu waxay tahay inaad kaarhka qaadato waa waajibaad dastuuriya oo sharciya oo qofku xaq iyo xuquuqu leeyahay reer biyeele waxaan doonayaa inaanay ilaawin dadku waxay ku tartamaan diiwaangelinta hadhow waxaa odhanaysaa haddaan nahay reer biyeeley deeqdaana la siiyey iyo dadka deegaanku way kala badan yihiin dowladduna waxay taqaanaa cidda laga diiwaangeliyey dhakhtarkaa waxaa lagu ballaadhinayaa oo lagu weyneynayaa tirada deegaan lagu diiwaangeliyey allahu akbar waxaa laydinka doonayaa iskuulka waxaa lagu ballaadhinayaa tirada ardaydiina waxaa laydinka doonayaa markaa inaadu kaarhka qaadataan oo kaarhkaas soo qaadataan markaa kaarhkaasi waa jaanis 5 sano dambe ayay qaadanaysaa inaad weydo haddana mar kale xuquuqaad leedahay waa xuquuqdaada ikhtiyaariga aad leedahay ee adigu aad cidda doonto ku dooranayso ee gobolkeennii sare u qaadaya ee degmadeennii sare u qaadaya ee biyeley sare u qaadaya ee adiga xuquuqaad leedahay muujinaya marka maanta waxaan idinku soconnaa haweenka iyo ragga dhalinyarada iyo waayeelka qof kastoon kaarh qaadan inuu kaarhkiisa soo qaato oo kaarhka raadiyo intaas weeyi fariinta maanta u soconnaa